iyadoo wali ay taagan tahay dhiilada colaadeed oo u dhaxaysa Puntland iyo Somaliland isla markaana labada dhinac isu ciidan iyo hub urursanayaan ayaa maanta xubno ka tirsan golaha wasiirada Puntland waxa ay ku soo dhaweeyeen Agga Tukke ciidan beeleed ka soo jeeda gobolka Sool wasiirada wasaaradaha arrimaha gudaha amniga warfaafinta waxbarashada iyo haweenka arrimaha qoyska ayaa si diiran iyo dhiirigelin ku soo dhaweeyay ciidamada beeleedkan dardaaran iyo kala warqaadasho kadib ayaa waxa saxaafadda si wada jir ula hadlay wasiirka haweenka arrimaha qoyska Puntland Mariyan Axmed Cali iyo xildhibaan Cabdi Faarax iyaga oo ka warbixiyay ciidamadan iyo beesha ay ka soo jeedaan waxaan maanta halkan u joognaa anagoo ka tirsan beesha Khayr Cabdi inaan wareejino ciidankii beeleedkii laga keenay carigeeni waxaanan la socodsiinaynaa cid walba inaan diyaar u nahay ka qaybgalka difaaca wadankeena iyo xoreynta difaaca wadankeena dagaalamay horeyna waa ugu jireen jiida hore haddana waa ka diyaar ay u yihiin ciidankan iyo hubkan halkan jooga waa ciidan qayb ka mid ah ciidankii ay ugu tala gashay beesha Cabdi Garaad dagaalka ciidankaasi waa ciidanka arkayseen qaybtii koowaad weeye waxaan oran karaa qaybtii labaad weeye waxa jira ciidan hore fara badan oo ciidanka Puntland kaga jira oo ciidamada ku jira lama oran karo kaas ciidan beeleed buu ahaa laakiin ciidankani waa ciidan beeleed ah Ahmed Shaam on Cable TV